bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada wararkii caalamka idinkaga imanaya telefishinka caalamiga ee Somali Channel xarunta dhexe ee magaalada London waxaana wararka u diyaara anigoo Cabdilaahi Xuseen Mariya wararka aan idin haynana waxa ugu dooran ururka xarakada shabaabul mujaahidiin oo gabi ahaanba la wareegay barihii ay ka talin jireen wadada dheer ee isku xirta magaalada Afgooye iyo caasimadda magaalada Muqdisho ee Xisbul Islaam iyo kalluun yari ku timid suuqa ganacsiga ee magaalada Muqdisho iyo waliba buundada isku xirta gobolada dhexe iyo gobolka Hiiraan ee liqliqato oo burbur xoogani ka muuqdo qaar ka mid ah golaha wakiilada baarlamaanka Somaliland oo shir jaraa'id qabtay wararka caalamka aan idin haynana wax ka mid ah dawladda Sacuudi Carabiga oo looga digay in ay gabi ahaanba joojiso dadka ay sida ba'an uga soo masaafurinayso magaalooyinkeeda kala duwan ee ay u masaafurinayso wadanka dagaaladu ka holcayaan ee Soomaaliya barafkii baana ee ka da'ayay gabi ahaanba cirif ilaa iyo cirif wadankan midowga boqortooyada Ingiriiska oo iminka sii yaraanaya intaas waa wararkiyo kooban haatan isaga fidsan ururka Xisbul Islaam oo dhawaan ku biiray xarakatu shabaabul mujaahidiin oo ay horay dagaal ugu galeen qaybo kamid ah gobolka Baay iyo Shabeellada Hoose ayaa bar kontaroladii ay ka talin jireen inta u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye wadada isku xirta waxa gabi ahaanba saaka la wareegay ciidamo cusub oo ka amar qaata maamulka sare ee xarakatu shabaabul mujaahidiin wadayaasha gaadiidka BL-ka ee dadka iyo rakaabka qaada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay saaka ku waabariisteen ciidamo cusub oo iyagu jooga isku xirka dheer wadada barihii controlka ee baabuurta lagu eegi jiray ama lagu baari jiray ciidamadan cusub ayaan wax lacag ka qaadin gabi ahaanba darawalada amaba wadayaasha gaadiidka BL-ka oo iyagu horay uga caban jiray lacag canshuur ah oo Xisbul Islaam ay ka qaadi jireen sarakac iyo kalluun yari baahsan ayaa laga dareemayaa suuqyada kalluunka ee magaalada Muqdisho warkan waxa noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Ali Xuseen Koronto sare u kacani laga dareemay qiimaha kalluunka suuqyada magaalada Muqdisho iyo kalluun yarida ayaa waxa uu yimid kadib markii la galay xilligii dabaylaha suuqa kalluunka ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ee uu ku yaalo kawaanka ugu weyn ee kalluunka ayaa waxa laga dareemay kalluun yari baahsan kiilada kalluunka oo markii hore la kala siisan jiray inta u dhaxaysa 50 ilaa 60 kun oo shilinka Soomaaliga ayaa waxa hadda kiiladii lagu kala iibsadaa 120 ilaa 130 kun oo shilinka Soomaaliga Bashiir Yuusuf Bare oo afayeen u hadla kalluumaysatada ayaa waxa uu ka warbixiyay sababaha keenay qiimo kororka iyo kalluun yarida laga dareemay suuqyada magaalada Muqdisho waxa uu intaasi ku daray in kalluun yarida ay sidoo kale keentay kalluumaysatada wadata doomaha waaweyn inaysan awood u lahayn xeebaha fofog inay ka soo kalluumaystaan ayna cabsi xoogan iyo weerar kala kulmaan maraakiibta wadamada shisheeye ee ku sugan xeebaha wadanka Soomaaliya sida dareemaysa suuqa maanta aad kalluunka ugu yaryahay wax dhibaato ah weli ma jiraan ayaa kalluunka la yaraaday tan aad u badnaa hadda waa yaryahay waxa kale oo ay keenaysaa badda oo dabayl xoog leh galan ayaa keenaysa iyo waqti oo isbedelay xilligii waxa laga baxay deerta xilli jiilada ayaa loo gudbay walaa qiimo kor ilaa 150 lagu tilmaami karaa ayaa jira maalmahan زائد ملايين سيدا يومبيغا جابرك دامبريغا بقول كيلو كنتن انه سركع ايوا باقي لو ركع كيلودي كنتن جوجتي 100 مريسا تي 100 جوجتي 150 مريسا تي 20 جوجتي 70 مريسا تي 60 جوجتي 80 مريسا بقول كيلو كنتن baa la qiyaasi karaa inuu kor u kacay malayo wax dhibaato ah oo aan badda hadda ahayn oo markaan la sheegay ma jiraan way meel furfur ma aanu dooyin waaweynaa iyo kolfayaashii iyo wixii dhammaan hadda ma shaqeeyaan dooyin yar oo aan meel dheer tagin ayaa shaqeeya ayaguna dad wax dhibaato ah weyn oo insaas lama kulmaan laakiin dhibaatooyinka xogaa badda muujadaha iyo dabaylaha zaa'idka ayaa hadda xogaa dhib ah rumaantii xeebo fofog aadna waxaan noo socnahay dhowr duruufood ayagoo ah in dooyin waaweynaa oo dhanba cabdilbeelka oo hooyada ugu taareen iyo cabsi ka jirta waa meesha cabdilbeel iyo isku baxsanaya maraakiibta haddii la tago inuu dhibaatada la kulmayno naga cabdilbeel baa soo egnahay in la ku qaldo ama dooyana la dejiyo ama la qabsado oo nala inaan cabdilbeel nahay dhibaatada jirta awgeed marka xeebaha hoosan ka kalmaysanaa inta badan marka la dalo xilliga dabaylaha
ayaa waxaa kalluun yari baahsan laga dareemaa suuqyada magaalada muqdisho taa oo keenta sarakac ku yimaada qiimihii kalluunka suuqyada magaalada muqdisho cabdulqaadir cali xuseen koronto Somali Channel muqdisho bundada liiqliiqata isku xirta gobolada dhexe iyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa burbur xoogani ka muuqda warkan waxaa noo soo diray wariye Ibrahim Maxamuud Gaadi wixii ka dambeeyay markii ay burburtay bundada liiqliiqata ee magaalada Beledweyne isku xiraysay gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa halkaasi ka bilowday howlo shaqo aad u baaxad weyn leh waxaana lagu xiray ilaa 7 doomood oo qaarkood matooro ku shaqeynaya oo biyaha si aad u dhexjabaaxaya doomankan ayaa waxa ay kala daabulaan shaxnada kala duwan oo raashin sida qudaarta xoolaha loo iibgeeyo wadamada qaliijka ee laga dhoofiyo magaalada Boosaaso ee laga raro gobolada dhexe gaar ahaan magaalada Beledweyne waxaana sidoo kale markii ay bundada duntay dhibaatooyin kala kulma dadka shacabka ee u kala gudbaya labada dhinac ee magaalada sida dadka qaarkood oo ku jaba iyo waliba iyadoo mararka qaarna ay dhimasho ay arintaasi geysato maadaama doomanka halkaasi ka shaqeynaya oo ay dadka qaarkood aysan aqoon u lahaynba in sida webiga looga dabaasho ay biyaha ku maashoodaan kadibna ay ku dhintaan dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa arrimahaas siyaabo kala duwan kaga hadlay waxaana halkaasi ku nool dad aad u fara badan oo muruqmaal ah oo kala rogaya shaxnada raashinka sida qudaarta iyo raashinka iyo waliba dalagyada kala duwan oo xoolaha ay ka mid yihiin Beledweyne oo go'day kadib markii ay webiga ku fatahay baawarna la go'day waxaa ku dhintay markay doomuhu gadoomeen 2 qof xoolo badan ay ku baabeen marka hadana dadku dib u qabaa oo lagu xariiftama dadku uga qabsada bundada kula qaar doomay raacaan marka dib weyn baa lagu qabaa shacabka bari buu qabaa hadday roonta hadda ay dhaanta sidii wax weyn hadda dhaanta waa isbedel baa ka muuqda dadku dul maraya laakiin wali hadda dib iyo shaqo lagu qabaa sanayna daan lahayn shacabka reer Hiiraan cid kasta oo sanbal oo wax qaban karta inay bundada wax ka qabato dilo howlaha shaqo ee ka soconaya magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sii laxaasadeen kadib markii maamulka Islaamiga ah gobolkan Hiiraan uu diiday in gaadiidka ay isticmaalaan bunda weyn oo ah bundada labaad ku taalo magaalada Beledweyne kadib markii dadka ku dhaqan magaalada iyo maamulka isla garteen in bundadaasi si aysan waxyeello u soo gaarin ay soo gaadiidka weyn ay u isticmaaleen Ibrahim Maxamuud Gaadi TV-ga Somali Channel qaar ka mid ah xubnaha wakiilada baarlamaanka Somaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa xildhibaanadaasi waxa ay ka hadlayeen sidii wax looga bedeli lahaa xeroosaadka golaha wakiilada ee Somaliland warkan waxa soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa Axmed Maxamed Jaamac shir jaraa'id ay maanta ku qabteen hotel xaraf magaalada Hargeysa qaar ka mid ah xildhibaanada watay mooshinka wax ka bedelka xeroosaadka golaha wakiilada kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf xoog leh ku kala dhaliyay xildhibaanada golaha wakiilada iyo sidoo kale shir guddoonka golaha wakiilada ayaa maanta xildhibaanada ka hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Axmed Ibrahim Daahir Axmed Weyne oo isagu faahfaahin ka bixiyay khilaafka kala dhaliyay mas'uuliyiinta golaha wakiilada ee shir guddoonka iyo xildhibaanada watay mooshinka wax ka bedelka xeroosaadka waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta shirka jaraa'id waxaa nagu kalifay inaanu qabanno baryahan badda sida aad la socoteen waxaa meediyaha iyo dee dhulkaba ka socday arrin khilaaf ah oo golaha iyo shir guddoonka u dhaxeeya kaasi oo ahaa wax markiisa hore dee fudud oo aanu doonayna inaanu xeer hoosaadka iyaga uun wax ka bedelno oo goluhu si aanu u dardargelino hawlihiisa iyo waxqabadkiisa iyo shaqadiisa oo uu discibliin adag u yeesho ayaanu doonayna inaanu xeer hoosaadkii wax ka bedelno sida aad la socotaan shuruucdu marka hore ee la qoro way qurux badan tahay marka san lagu shaqeeyo godoloolooyin baa ka soo baxa godoloolooyinkaasaanu doonayna inaanu kaabno dabeetana waxaa loo bedelay oo la yidhi oo ay qolada shir guddoonkii dee ay dacaayad uga dhigteen oo ay meel walba mariyeen annakaana loo jeedaayo reerridaya waa qodob iyaga 55 codka lagaga qaadi karo oo qodobadanaanu wax ka bedelayna ka mid ahaa oo aan ugu talagalnay inaanu 42 ka dhigno ayay horta halkaa qayladaa ka keenay idinku golaha waa taqaanaano dee waad nala shaqaysaano 42 baan lama helin oo sida lagu helaa ay adag tahay madaxweynaha
ayaa 42 lagu impeach gareeya madaxweynaha ayaa laga qaadaa maamuuska 42 iyaga oo deeshir gudookii oo noqonku dooranayna 55 ka annaka berigi goonayo waxaan u geynayna waxa ahayd marka waxaan dan u arkaynay imika soo shaqeyn weey marka waxa weeye qodobkaasi ayay iyagu ka rooraya ayay horta dacaayada galiya haddaan iyaga riiditaankooda doorayno halka islaamaanna gaadnay sababtoo ah waxa ay waqtigoodu u dhamaaday golaha iyaga santii sameeyay oo soo doortay way dhamaatay shirgudoonka waxa loo kordhiyay haddaan golaha nahay guurtida 2 sano iyo badh loo kordhisay iyaga ayaa u kordhiyay annaka daahidina loo kordhiyay xildhibaanadu baa kordhin kara haddaan doonayno ka qaadno sidaas abay ibka qeyr sharci ku fadhiyaano sidaas u hawl yaraan lahayd buu qabo maana gale marka waxaan dan u arkaynay oo golaha iyo qaranka maslaxadiisa u arkaynay ayuu arrinkani ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka madaxweynuhu isagoo la dhanjooga ayuu markuu arrinka maqlay ayuu yiri ila suga oo igu soo gaaray madaxweyne ku xigeenkuna noo hakiyuu yiri waanu hakimay waxaanu afeef baan dhiganay waxaanu niri waanu horta waanu yeelaynaa arrinka aad batirahdeen waxa weeye waxa socda kalfadhi muddadiisu kooban tahay oo qeyr caadi ah waqtigiisuna nama sugayo markaa inta aanu adiga ku fadhino iyo intaynu wada hadlaynay adwaawanta iyo dhaxgalkiinaasi wax ka soo baxayaan goluhu noo xidhnaado waqtigii yaanu dhammaanay saddex naar waa saddex aqaloo kala madax bannaan oo midooba dastuurku uu siiyey waajibaad gaar oo iyagu check and balance isku ahoo is ilaaliya midna midka kale shaqadeeda ma faragelin karo waana wax dastuurku si cad u tilmaamayo waynu ognahay markaa wuxuu caddeeyey inay dawladdu arrinkan iyadu ay wado wax xukuumadda inay iyadu wado oo arrinkan iyadu ka dambayso oo ay ku taageersan tahay ayuu si cad u caddeeyey oo ay iyagu golihii si cad oo bareedh ay faraha uga jiraan taasina waxa weeye waa arrin qeyr dastuuri waxa weeye dimuqraadiyaddii iyo dawladnimadeennii iyo wixii aynu ku faanaynay caalamku maanta uu nagu soo joogsadayna waxay ku noqonaysaa dhabarjab haddii aanu qoladayada kulmiya nahay dawladda maanta jirta ay ka dhisan tahayna wax fara badan baanu mucaarid soo haynoonu ummadda ugu qaylinayna dastuur baa la jabiyey xeer baa la jabiyey kanaa la yeelay inaanu annagu waas 4 bilood fadhino meeshii 4 bilood oo kaliya inaanu maanta tiyo kala la nimaadna waxa weeye waa mid subxaanallah ummadii aanu wax u sheegaynaa wayna daawanaysaa waa ummadanu masiirkooda ka hadlaynaa lahayn waxbaanu idin hagaajinaynaa iyo waxbaanu bedelaynaa waxa haddaan la nimaadno waxa weeye wax ayaan aan la qaadan karin marka waxaan leeyahay xukuumaddu hadday doonayso waan iyo hadday wanaag doonayso iyo haddii arrinkan in la dejiyo ay doonayso diyaar baanu hayno way hayso waanu fadhinay intaaba iyadaan u garba duubnay ummadda iyo dalkana wax qas loo geliyo oo la geliyo political crisis iyo dhibaato maanta iska hor imaada aniga iima muuqato wax idoo kalifaya meesha lama taalo waxa weeye dawladdu inay sidan tala ka tahay iyo inay xukuumadda inay tala sidan ka tahay iyo inay bareerayso oo maxkamadda dastuuriga ah ayaanu u gudbinay dacwadayadii waxa weeye wixii la isku qabto tafsiir u baahda maxkamaddaas in la kala saarto waa sida dastuurkeedu u dhigayo dastuuriga maxkamadda lafteeda weerar baa ilaa shalay ilaa darada lagu hayo shacabka reer Somaliland waa ka dheregsan yahay
waxa weeye xeer hoosaad yar oo golaha wakiiladu lahaa oo iyaguna ay markii hore samaysteen ayaa mashruuc maxaa dhahay laga dhigay mashruucana waxaa ka dhigay shirgudoonka dhowjuun baa lagu hayay maxaa dhahay golaha wakiilada waxaana ku hayay maxaa dhahay oo meelaha dhusfuf lahaa wasiirada oo yani si qabiila iyo si saaxiibnimo ah iyo si maxaa dhahay habab kaleba ah intaaba u isticmaalaysay maxaa dhahay inay xildhibaanadan mooshinka maxaa dhahay keenay inay ka soo muxuu ahaa xaggan dhinacan kale ay ku soo dabaalaan laakiin runtii mar walba waxaan iska ilaalinayay in arrintaasu ay faraara yeelato oo ay maxaa dhahay ummadda reer somalilan iyo shacabkeeda wanaagsan ee samirka badan inay gaadho ayaanu maxaa dhahay mar walba ka ilaalinaynay inuu khilaafkaasu gaadho toddobaadkii hore ayaa ahayd markii shirgudoonka golaha wakiilada ku dhawaaqay inuu xidhmay kalfadhiga golaha wakiilada ayna bureen mooshinkii ay wateen mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada kuwaas oo sheegay in ay wax ka beddelka xeeroosaadka golaha wakiilada ay hor keeneen axmed maxamed jaamac Somali Channel Hargeysa halka aad warkaas ka daawanaysaani waa xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel ee magaalada London iminkana wararka caalamka wadanka Sacuudi Carabiya ayaa looga digay in uu gabi ahaanba joojiyo masaafurinta uu masaafurinayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka kala duwan ee mamlakada Sacuudiga dhawaan ayay ahayd markii 150 qof oo Soomaali ah oo isugu jira rag haween iyo caruur 17kii bishan ay u masaafuriyeen magaalada dagaalka ba'ani ka holcay ee Muqdisho hay'adda xuquuqda bini'aadanka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan HRW ama Human Rights Watch ayaa ugu baaqday in dawladda Sacuudigu ay eegto xuquuqda insaanka oo meel dagaal ay ka holcayaan aysan dad bini'aadana oo wadankooda ku nool oo ku soo qaxay aysan u celin dadka la celiyay ayaa waxa kamid ah haweeney 35 jir ah oo 20 sano oo nolosheeda kamid ah ku noolayd magaalada Jeddah ee wadanka Sacuudi Carabiya sida warbaahinta caalamku ay sheegeen hay'addu waxa ay sheegtay in ay dadka la masaafuriyay iyadana ay kamid ahayd haweeney markaas in ka yar muddo saacada ah umul ahayd waxa ay hay'addu sheegtay in ay tahay nasiib darro ka baxsan xuquuqda bini'aadamka iyo diinta islaamkaba in dad masaakiina oo u soo barakacay wadankooda inta laga qabto lagu celiyo halkii amaba bartii ay ka soo qaxeen oo waliba dagaaladii ay ka holcayaan in ka badan 20 sano wadankan Ingiriiska ayaa waxa ka dhacay baraf shantii cisho ee soo dhaaftay barafkaas oo sababay gabi ahaanba in ay istaagaan gaadiidka cirka dhulka iyo badda ee wadankani hase ahaatee waxa aad moodaa maanta ilaa iyo shalay inuu barafkii dhalaalayay isu socodka gaadiidka basaska tareenada iyo baabuurta ayaa si caadi ah amaba kooban ugu soo laabtay gabi ahaanba wadankan waxa kaloo bilowday duulimaadyadii diyaaradaha garoonada caalamiga ee Heathrow International Airport inkastoo ay wali xaniban yihiin qaar kamid ah garoonada caalamka ee kale ee ku yaala qaaradda Yurub hadduu eebba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid lamid ah waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh